daaroodow kor inti loo kaadiyo kaadida marka ay soo noqoto xareeda cidka ka timaadiyo kaadida daaroodo waa see marka aad dhahay ana ila yaabaysa ma garanaysaan subxaanallah qofna rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam inuu ku xadgudbo uu caayo gabadhan walaasheeda idina hadda ay leedahay wax ay sheegaysid waxay isku mid ka dhigtay kaadi inta kor loo kaadiyo waxay tiri roobka cirka ka imaanay waa isku mid subxaanallah wallahi social media dadkii waa ku washteen TikTok-ga dhibaatada waxa keenna waxa ka mid ah waxaan giftiga la diraayo intaas idoo lacag ku raadinayso waa gabar Soomaaliyeed dadkii shaki baa dadka marka qaarkood ani markaan arko shaki baa iga galaba inuu qofkan muslim yahay inuusan ahayn sababtu qaabku u hadlaa dhibaatada waxa keenay waxyaalaha giftiga dadka ay dirayaan dhibaatada keentay sidaas loo caaytamayaa maanta heer waxa la marayaa in la dhaho kaadida kor loo kaadiyo biyaha roobka cirka imaanayo waa isku mid heerkana maanta marayna wardiinta aabe dadka aabe maxaan iimaanka niga qaaday oo maanta dil lacag intaas lagu siinaa diintaada caay oo cayn la soo waa iswa idoo gift loo diraayo giftiga yariiska TikTok la diraayo saantay hadii la kaban lacag badan lagu siinaa ilaahayna amaasho markaas dadka dhoot waxa lagu leeyahay migooso saanu samee laakiin xumaatada ugu weyn la sameeyo looma jeedo waxaan idhi lahaa dadka noocaas oo kale hadii aragteen unfollow iska saara blogna iska saara sababtoo wax uu ku faa'iideynay male maanta hadii aad tahay qof muslim inuu dhageysto waxyaalahaas oo kale macquul ma noqonaysa